asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin meel kastaa joogtaan aad baan idin salaamaya kusoo dhawaada kanaalka afiifa warsame. maanta waxaa rabaa inaa idinla wadaago boogan la yiraahdo A Room of One's Own. waxaa qoray boogan Virginia Woolf. waxaa la qoray adiga bilowgii qarnigii 20aad. booga markaan khulaasayno ayaan dhowr su-aalood isweydii doonaa oo ku aadan fikirkeena, yacni boogan uu weli yahay boog la xiriira xaaladaha maanta jira iyo in uu yahay yacni boog waqtigiisa uu dhamaadayba. su-aalahaas gadaal ayaan ka weydii doonaa, laakiin si guud oo mase mawduuca guud ee boogan ku saabsan yahay waxaa waaye in uu kastoo isku dayo inuu banyaansho mise inuu baara cadeeyo kaalinta dumarku ay ku leeyihiin suugaantuna waxay noqon kartaa yacni dhinacyo kala duwan, ha noqoto sheeko faneed qorid, waraaq cilmiyeed qorid, gabyid, nooc kastoo adigu wax soo saar cilmiyeed ah. buuguna wuxuu ku socdaa qaab sheeko ah. qofka laga sheekeynayo iyo kan sheekeynayo waa la isku qaldaa kisto, laakiin waxaa isticmaalaynaa ereyga sheekeeyaha ayaan isticmaalaynaa mise narratorka. marka buugga sidan ayuu ku bilowday. sheekeeyaha buugga mise Woolf ayaa waxay soo jeedinaysay cashir ku saabsan dumarka iyo sheeko faneedka. kadib mawduucii ahay dumarka iyo sheeko faneedka ayay waxay u bedeshay mawduuc kale oo ah qofka dumarka waa inuu haystaa qol qaas ah si ay u noqoto qoraay mise si ay u noqoto qof wax qora. mawduucaas ayay ku bedeshay. arrintaas ayaa dood badan keentay. marka waxa ay buuggan ku cadeeyaysaa fikradaas qofka dumarka waa inuu haystaa qol qaas ah si uu u noqdo qoraa ayay buuggan ku cadeeyaysaa. sheekeeyaha ayaa wuxuu u tagay meelo kala duwan. meelaha uu tagana waxaa kamid ahay college-ka Oxbridge ayaa kamid ahay si ay ma aragta u baarto wax ku saabsan dumarka mise ay u ogaato sababta dumarku ma aragtay ay uga faqiirsan yihiin ragga. marka ay college-ka gashay waxa ay aragtay mise fiirinaysay indhaynaysay fursadaha waxbarasho iyo lacageed ee nimanku ay haystaan, cuntooyinka raggu ay cunayaan iyo midda dumarka. waxay ogaatay in dumarku mase raggu inay ka cunto wanaagsan yihiin dumarka, oo cuntadu ma aragtay raggu cunaan aysan dumarku cunin, fursadna u helin. taasna waxa ay fikir ku gaartaba qofka dumarka sidoo u noqonaya qof wax soo saar leh, qof wax qoraa haddii uusan cunto wanaagsan uusan cunin. sidaas ayay ku fikirtay. su-aalo badan oo dhowra ayay isweydiinaysay. waxa ay tagtay marka maktabad kale ayay tagtay iyadoo raadinaysaa jawaabta su-aasha dumarku maxay ragga uga faqiirsan yihiin. faqiirnimadaas ayaana dumarka wax badan ku kalifto. qofka dumarka faqiirnimada haysata darteed waxaa laga yaabaa inuusan cunto uu rabo uusan cuni karin, maqaayad uusan tegi karin, adeegyadaas uusan heli karin. marka iyadoo weli jawaabtaas baaraysa ayay waxay tagtay maktabad. waxay aqrisay dhowr buug oo dumar ku saabsan. waxay ogaatay in dumarka wax badan laga qoray, laakiin waxaas waxa qoray ay rag yihiin, laakiin yacni niban yihiin oo qof dumar ah oo arinta dumarka wax ka qortaba aysan jirin. nimanka marka dumarkaas wax ka qoray kuwa way amaanayaan si xad dhaafa, kuwa way eedeynayaan si xad dhaafa, ilaa ay mararka qaar ku tilmaamaan oo ay dhahaan horta dumarku bili-aadana, dumarku ruux ma leeyahay, dumarku naf ma leeyahay, dumarku ma wax bili-aadanahoo la fahmi karaa, dumarku waa hanti. kuwa qaar ay aaminsan yihiin, kuwa qaar aaminsan yihiin dumarku waa malaa'ig adduunka lagu soo fasax. yacni qoloba ay wax waa aaminsan tahay. waxaasoo dhan oo aaminaadaha kala duwan haysta, dumarka ka haystana waa wada rag oo ma aragtay ma ahan qof dumar ah. waxay isweydiisay horta dumarku maxay qoreen. waxay tagtay kadib qeybta dumarka waxa qoray mise dumarka waxyaabaha ay qoreen qeyb loogu talagalay. waxay ogaatay dumarka badigood oo wax qoro inay yihiin dumar dabaqada dhexe mise dabaqada sare leh oo dumar dhaqaale haysta, sidoo kalena dumar lacag haysta inay ahaayeen, sidoo kalena dumar ay yihiinba aan wax caruur haysan. oo waxay leedahaba dumarka wax qoray oo maktabada yaalaba waa dumar lacag leh oo aan caruur haysan. oo marka iyadu waxay ku doodaysaa mise ay aaminsan tahay waxyaabaha dumarka qaar aysan wax u qorin inay faqiirnimada kow ka tahay, oo qofka hadduu faqri yahay uusan waxba qori karin ayay ku fikiraysaa. faqri hoostiisna aan wax lagu qori karin. sidoo kalena waxay ku fikiraysaa qofka dumarka marka mas-uuliyad caruur iyo waxaas ay ka daba wareegayso, wax soo saarkeeda cilmiyeed inuu yaraahayo ayay sidoo kale ku hadashay. waxyaabaha kale oo ay dumarka ka ogaato waxaa kamid ah in
dumarku horta aysan waqti haysan oo ay wax ku qoraan mise ku fikiraan, waayo qofka dumarka hadduu maago meel fariisa cabaar yar qof kale u imaahayo dhahaya waxaas ii doon waxaas soo qabo. yacni qofka dumarka waqtigiisa isagoo xiro mala maanta dhan in lasoo carqaladeeyo oo hadday salka dhulka dhig maagta la yiraahdo koobkan soo dhaq mise qof baa imaaday in la yiraahdo ayaa badan. marka waxay leedahay dumarku waqti maba lahan, waqtigooda waa lala isticmaalaa, sidaas darteed wax maba qori karaan. tan kale dumarku lacag ma haystaan oo inta lacagtooda isticmaalaan qol magaalada inta ka degaan mise meel maaragta xiran inta kireystaan wax ma ku qori karaan. kaaga sii darana dumarka qol qaas u ah ma haystaan oo inta qolkooda qaaska hoos ka xirtaan wax ma qori karaan. marka waxyaabahaas kugu dardarmay dartooda ayaysan dumarku waxba qori karin. waxay aliftay sheeko ku saabsan Shakespeare. waxay leedahay Shakespeare hadduu ahaan lahay gabar la dhala laheeday tiri oo asaga hibadu leeyahay mise taalentiga uu leeyahay oo kaloo leh. yacni Shakespeare wuxuu awood u yeeshay maanta inuu intaasoo buug intaasoo sheeka uu qoro uu adduunka caan ka noqdo, laakiin gabadha la dhalta waxaa ku dhacday guriga lagu celiyay, waxaa la yiraahdaa guriga joog, alaabta dhaq, cuntada kari, wiilka wax u kare, waxaasaa la yiri. kadib markii dambe guura lagu qasbaa, guursaa la yiri. markay guurkii diiday London ay u carartay, markay London u carartay kadib xaamile noqotay, markay xaamile noqotana way isdishay. marka waxay sheekadan usoo qaadatay oo waxay leedahay waa xaalad dumar badan ay ku sugayiin oo gabdho qaara waxay u guursadaan in ay lacag helaan mise inay qarash helaan. oo waxay leedahay haddii dumarka ay heli lahaayeen fursadaha walaalkeed uu helo, fursada walaalkeed helo, hadday noqoto fursad waxbarasho, fursad shaqo, fursad dhaqan, fursad siyaasadeed, ma dhacdeen in gabadhu ay isduleyso oo nin kale isku duleyso, xaamilo u noqoto, hadhowne maaragta isku buuq ay isku tuurto oo isku disho, ma dhacdeen. sidoo kale waxay leedahay gabadhu waxyaabo badan waxay samey lahayd, aqoon ayay kusoo siyaadi lahayd dadka, oo dumarka wax qoray ayaa badnaa lahaa haddii fursada dumarka iyo ragga la siiyo ay isku mid ahaa lahaayeen, oo dumarka wax soo saara mise dumarka kale wax ka qora mise dumarka ma aragtay hal abuur kalaha saayid u badnaa lahaa. laakiinse maantay waxay taagan tahay dumarkii ma haysta fursadihii ragga, fursadihii waxbarasho ma haystaan, waqtigii ma haystaan oo waqtigii dadka laleh, ilmaha laleh, ninkeeda laleh, hooyadeeda laleh, aabaheeda laleh, walaalkeeda laleh, dadkaasoo dhan u adeegaysaa. lacagna ma haysato, shaqana ma haysato ayay leedahay. taas darteeda kaliftay ay leedahay in dumarka wax qora ay yaraadaan ayay leedahay. marka qofka dumarkaas u noqdo qof wax qora waa inuu noqdo qof waqtigiisa asagoo maamuli kara. markuu rabo qof seexda, waqtigiisa soo kaca, jadwalaysta, yacni oo aan lasoo carqaladayn. iyo sidoo kale qof qol gooni ah leh waa inuu noqdaa oo qolkiisa hoos ka xiran kara si uu wax u samaysto. sidoo kale waa inuu noqdo qof lacag la ayay leedahay oo waxyaabaha qorida u baahan tahay ay noqoto qof ayadoo iska kaabi karta. sidoo kale qofka dumarka waa inuu noqdo qof wax yar wehsada, oo macnaha wehsiga waxay leedahay dumarku xawaaray ku socdaan oo hawl mas-uul ay ka yihiin iyo mid aysan mas-uul ka ahaynba farahay kula jiraan. ayada waxaa la yiri guriga tiirkiisa hooyata adaa waxaan isku haya la-aanta waxba ma kala dhici karan ayaa laga dhaadhacshay. markaas meel kasta gacanta mise lugta kula jirtaa. waxay taasna ku sababta ayada inay maaragtay isweyso oo maaragtay wax ayada gooni u ah mise shakhsiyadeeda ku saabsan ay soo saarato, wax magaceeda ayada ku saabsan ay samaysato oo maanta dhan dad kale maaragtay howl u haystaa. dumarka waxaa laga qoray taariikh badan, waxaasoo dhan laga qorayana waxay ahaayeen kaalmaha ayagu ay ka geysteen si ay qof kale u caawiyaan oo qof kale ay jaranjaro ugu noqdaan oo qof kale ay garab usoo istaagaan oo qof kale ay usoo saaraan. laakiin in ayagu isi soo saaraan mise ayagu meesha iska soo muujiyaan inta badan way dayaceen. oo mararka hadda qaar nin kastoo saas ah haweenaa ka dambeysay waa la leeyahay. haweenkaas ka dambeeyay waxaa laga yaabaa inaan magacooda la sheegin oo maaragtay meel aan laga soo qaadin, waxba ayada dallacsiin aan lagu sameyn, waxba ayado qarashkeeda iyo maaragtay magaceeda waxba koriima uusan ku siyaadin. laakiinse qofkii ay maaragtay garab siinaysay, riixaysa, xitaa laga yaabo mararka qaar inuu dhabar jabin ku sameeyo. marka taariikhda dhan marka gadaal loo fiirsho waxay leedahay dumarku waxay ahaayeen jaranjaro la koro, jaranjaro horumar lagu gaaro, hadhowna dhulka la iska dhigo.
marka waxay leedahay qofka dumarka waa inuu noqdo qof wehsada si kastoo ay nafteeda u dareemto yacni ruuxdeeda isku dareemto maqaamka iyo booska ay adduunka ku leedahay mise at least guriga ay joogto ay ku leedahay. marka muhiimada ugu badan ee buugan waa intaas bal adigu ka fikir bal sheekadan ma tahay mid la xiriirta xaaladda dumarka waliba xaaladda dumarkeena maanta Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin oo waxaa jiro adduunka maanta xaaladda dumarka iyo xaaladda dumarka Soomaaliyeed waa kala duwan yihiin. marka dhaqamaa jiraayo diimaa jiraayo juqraafiya jiraayo waxaasoo dhan jiraayo kala duwanaanshaha keenayo laakiin fikirkan maanta ay leedahay dumarka wax soo saara way yar yihiin sababta ay u yar yihiinna waxay tahay fursadaysan haysan waqtiyaysan haysan lacagaysan haysan qol ay wax ku maamushaanaysan haysan yacni arrintaasi ma tahay mid la xiriirin karo wax soo saar la'aanta jirto. mid kale ani fikir ahaanteyda waxaan aaminsanahay waxay tiri dumarka ugu badan wax soo saaray waa dumar caruur lahayn ay tiri caruurtuusan aaminsanahay caqabad ma ahan sida ay la tahay qofka inuu caruur yeesho uu horumar sameeyo waxaa isla wax isku xiran ma ahan laakiin ayadoo inay kastoo isku xirtaan dareemoya sidoo kalena waxaan dareemayaa dad badan oo dumar ah oo faqri ah oo wax qoreen inay jiraan laakiin dabcan faqrigu iyo iskuma xirna wax soo saarada laakiin mararka qaarna waa laga yaabaa inay isku xiraan oo waxyaabo qaar oo maaragtay qofku u baahan yahay fududeysan karo in uusan maaragtay fududeysan karin lacagtaas aysan haysan darteeda. marka dumarka maanta lacagta haysta waqtiga haysta oo qolo gooni ah haysta waxaa laga yaabaa wax kale ku mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsan yihiin adduunyo kale maba ahanba adduunyo wax soo saar yacni ahaanteeda bal adiguba fikir saa doonto u fikiri buugani ma nala xiriira maanta waan kula talay adinkuna bal inaa akhrisan bal inaa ka heshaan nuxur intaan ka baxsan. marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.